waa muctasimah. waxay sabab u ahayd kalmadaasi furashada magaalo dhan, magaaladaas oo ku adkaatay hogaamiyaal badan inay furtaan. sanadku markuu ahaa 230 hijriga kuna beegnayd bishii barakeysaneed ee Ramadaan, waxa uu Muctasim ibn Rashiid weerar ku ekeeyey magaalada Camuuriya isagoo oo wata 150,000 oo ciidamadiisa ka mid ah. waxa uu furtay magaaladaas ku adkaatay inay furtaan mujaahidiintii iyo hogaamiyaashii badankooda. dhacdadii Camuuriya waxay ahayd baal cad oo taariikhda islaamka inoo gashay. magaalada Camuuriya ee dhufaysideeda aad ku adkaayeen iyo maalintii barakeysaneed ee la furtay, sidoo kale khaliifka u kacay una istaagay gilgilay dhufaysida cadowga. waxa ka dambeysay qiso ay dhidibba u ahayd iimaan, ruuxeeduna yahay gobonnimo. inuu gudaha ugu dhaadhacno maalintaas la yaab kale waa maalin ka mid ah maalmaha Ilaahay. وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن، تسمو بنفحته ملائك الرحمن. waxay ka bilaabmaysaa sheekadeennu waxaa suuqa u soo baxday gabadh ka mid ah gabadhaha muslimiinta ah ee ku noolaa magaalooyinka ay haysteen Roomaanku. waxay damacday inay ka iibsato nin ka mid ah nimankii Roomaanka. waxay ku heshin waayeen qiimaha. waxay damacday inay ka tagto. intaanay tegin waxa uu ku yidhi khasab ku iibso. waxayna tidhi ma iibsan maayo. waxa uu ku dhuftay dhirbaxa kulul oo ay la qaylisay. kelmada ay ku qaylisay waxaa ka mid ahaa waa muctasimah. qaababka loo soo wariyaa way kala duwan yihiin. muhiimadda aynu uga dan leenahay waxay tahay in gabadhii ay xidheen cadowgii Roomaanka ahaa kuna xujeeyeen bal ku yimaado muctasimkaad sheegaysaa. waxaa arrintaa laga soo gaarsiiyey Muctasim. waxa uu fuulay faraskiisii, waxa uuna ku dhawaaqay dagaal isagoo oo taagan magaalada khilaafada ka talinaysay albaabadeeda. waxaynu ka hadlaynaa dagaal ay xitaa ka qayb galeen adeegihii, digtoorkii, fardahayihii iyo dhammaan shaqaalihii kale ee joogay qasriga. waxa uu Muctasim ku dhaartay in aanu soo noqon isagoo oo shahiiday garbaha lagu wada mooyey ama qabsaday magaaladaas una gargaaray gabadhii muslimka ahayd. markii uu diyaargarow Muctasim diyaargarow aanu hore u diyaargaroobin khaliif ka horeeyey, waxa uu yeedhay qaadigii magaalada Baqdaad Cabdiraxmaan ibn Isxaaq. waxa uuna markhaati uga dhigay inuu 3 meelood meel xoolihiisa jihaadka ku bixiyey. intii soo hadhayna waxa uu siiyey dumarkiisa, carruurtiisa iyo shaqaalihiisa. waxa uu isna ka qaatay xoogaa yar oo uu kafan ku iibsado. kadib wuxuu u degdegay la kulanka cadowga ka qaatay gabadha muslimka ahayd. ciidanka muslimiintu waxay wateen fardo u badnaa keenyooyin iyo xoogaa majaaniiq ah oo u dhigmay xilligaas gantaalada ridada dheer. markuu u dhawaaday magaaladii wuxuu u qaybiyey ciidankiisii 3 qaybood, mid walbana wuxuu hogaamiye uga dhigay hogaamiyaashiisii si ay isugu bedelaan dagaalka oo u dagaalamo maalin walba ciidan cusubi. ciidankii u horeeyey markay magaalada gaadheen waxay 2 jeer ku soo wareegeen magaalada, waxayna degeen booskoodii. haddana waxaa soo galay ciidankii labaad, isaguna sidii oo kale ayay 2 jeer ku soo wareegeen, waxayna degeen meeshii loogu talagalay. kadib waxaa soo dhaqaaqay ciidankii saddexaad, waxayna sameeyeen intii in leeg. waxaa la taagay majaaniiqdii ama gantaaladii. magaalada dhinac walba waxaa ka go'doomiyey 3 ciidan. waxaa bilaabay dagaalka ciidankii koowaad iyaga oo ka muujiyey wacdaro. waxaa ku xigay ciidankii labaad, sidaas in leeg ay iyaguna jab u soo gaarsiiyeen. kii saddexaad oo hogaaminaya Muctasim ayaa markooda galay dagaalka una dagaalamay qaab laga yaabay kala darnaa 2 ciidan ee hore. waxa uu dagaalku sida ahaa dhowr maalin oo lagu garaacay magaalada gantaaladii, laakiin magaaladii maysan dibcin, albaabadiina maysan furan. waxaa dhacday nin muslim ahaan jiray oo ay qabsadeen Roomaanku kadib gaaloobay ayaa markuu arkay ciidanka islaamka oo takbiiranaya eedaankoodina hawada galay, waxa ku soo maaxatay oo u xiisay diintiisa hore ee islaamka ahayd. waxaa kacay iimaanka qalbigiisa ku aasnaa. waxa uu si dhowmaanaysi ah uga soo baxay magaaladii, wuxuuna u yimid ciidamada islaamka. waxa uu dib u qiray shahaada. kadib waxa uu uga warramay sir weyn oo islaamka anfacaysa. sirtaasoo ahayd in qayb ka mid ah dhufayska magaaladu dumiyay biyo dibna aan loo dhisin. waxa uu tusiyey Muctasim meeshii. waxaa la isugu keenay majaaniiqdii oo dhan, waxaana lagu bilaabay garaacitaan joogto ah ilaa uu dalooshamay, dildilaacay, dumayna gidaarkii. kadib ciidamadii muslimiintu waxay ugu daateen sidii kuwa u xiiso qaba una haraadan cadowga ku geedaaman meeshaas. waxaa isqabsatay qaylada fardaha, takbiirta dagaalyahanada islaamka, qacda seefaha. maalinta 17aad ee bishii Ramadaan, intaanay dhicin qoraxdii, waxa ay muslimiintii gacanta ku dhigeen magaalada adkayd ee la furan kari waayey.
waxa ay muctasim ciidamadii islaamku ku soo galeen magaalada iyaga oo saaran fardahoodii madaxana hoos u raaricinaya laga dareemayo inay lagu mahadnaqayaan nimcadaas. waxay ka qanimaysteen xoolo aan tiro iyo cadad toona lahayn waxayna qafaasheen 70,000 oo ka mid ah dadkii magaalada degnaa. waxa uu maray muctasim in loo saaro xoolaha iyo dadkii la qafaashayba magaalada banaankeeda. markii laga soo saaray xoolihii iyo dadkii la qafaashay waxaa dhulka lagu daray magaaladii sida u dhammayd waana la baabi'iyey. waxaa ciidamo loo kiciyey hal gabadh kuwa maanta la kufsaday lana dilay yaa miciin u ah. waxaa magaaladan loo dumiyey hal gabadh kuwa maanta la kufsaday lana dilay yaa miciin u ah. waxaa ciidan 150,000 oo qof ah ay u dhaqaaqeen walaashood oo gaaljiitay. howlaha maanta muctasim ay u yeedhanayaan ma jiro, ciidan intaa dheer leeg oo u dhaqaaqaya ma jiro, amiir ku dhex dhaqan ehelkiisii islaamihiisii ciyaalkiisii wax ka maqani aanay jirin oo u kacayay ma jiro inta uu yidhaahdo labbayk ya ukhtaa labbayk ya ukhtaa.